jaceylkayga waxaan ku waayay magaca magaalada Muqdisho waxaana leeyahay dhaay anagu waxaana reer Hargeysa reer Muqdisho ma soo galaan waxa ku soo martay laba dhibaato gabadhii oo ka raacday nin lacag leh iyo adiga oo dhahay Soomaaliya soo jeeda reer xamar tahay gabadhii inuu reer Hargeysa mugsiinay kuma siisan taas dhibaato soo martay labada dhibaato soo martay Soomaaliya ayaan kala nahay leeyahay dhahay السلام عليكم دمان صحابتك حرن بيتين البلحان يوتيوب كيغا waxa garabkiiga fadhiyo Soomaaliyeed waxa wada qisoo cajiib ah oo ku dhacday waxaan ka soo qayb galay barnaamijkeena ahayn labada qisaada bisa nama sheegay soo dhaw wax ku weydiinayna magacaaga horta dhawa barnaamijkaaga ku dhawaynaa bulxan ina caawa garabkaaga fadhiyana aad iyo aad sharaf ikraam ilaahay ku sharfo adiga iyo teamkaaga aad idin salaamo ma sha Allah waqti badan oo ku haminay inaan barnaamijkaaga ka soo muuqdo ama mar aan garabkaaga soo fadhiisto markood mar saddexaad ma tirina ku leeyahay brad adiga teamkaaga okay walaal waxaan ugu bilaawdaa magacaaga magacayga horta oo real name-kayga waxa waa Abdicis Ali Saq laakiin magaca social media ku isticmaal FJ Asis waa FJ Asis FJ waxay dhacday qiso sanadkii ku dhacday waa goon waqti ku dhacday ni horta qisay qabsatay fahmi in adduunka qof walba qisay qabsana in 2019 bishii 26 gabar isbaranay in gabadhan reer Hargeysa ahayd anigu reer xamra iska ahaa gabadh markuu isbaranay in sanadkaas ilaa iyo waqtigan waa soo wadna waa soo xiriirnay marka in gabadhan marxalada badan ay soo marno dad 4 sano wada sheekaysan waqti soo gali waa dareemi kartaa adiga marka wallahi gabadh horta in markuu war sartu waa xanuunsatay ma fahmeen 4 sano waa socotay xiriir leeysan ha 4 sano wada soconaha marka way xanuunsatay in xanuun aad oo ugu dhibaatatay soo martay Hindiya loo qaaday waana u samraayay oo intaas garabkeedaan taagnaa kama bixin ma fahmeen in markay imaaday caafimaadday nin oo I think inuu wax xoolo haysta amrena iyaga raacday my brother صح waxay dhahday 4 sano kaliya صح way xanuunsatay soo caafimaadday markaas waxay iga raacday nin guursatay صح sababta keentay in ka guursatay in horta nin rag oo iska daayiro dareem kartaa in waan iska wax baranayo in waqtiga maanta saan dareensan in kasto wax walba Ilaahay u qoray had kulli ahaan suurta maanta meesana amarayna fahmi marka aan wax barashaan baranayo jaamacadiyaan wada waxyaabaha ay kaga tagtay maxaa keenay in inta ku soo qaadanaysa 4 sano xiriir 4 sano waqti oo sanayn malacag ka raacday mas arrimo kale oo dhibaato keenay wallahi horta in markay intay iga tageen ka hor way soo bacday marka waxay ugu dhahdeen in arrimaha ma noo gabagabeysay marka waxaan ku dhahday jaamacadooda familkan waa og tahay markii waqti ama nasiis intaan ba isu socotay marka waxay ugu dhahdeen aniga qof saasa jiro aan ka qarinayay oo xaafada familkan wax ku taraayay marka qofkaas aan rabay inaan guursado ugu صح qofkaas waxa dhahday qof waxaysto hasmaasay ha zaid aanin xogo dhaqaale haysto aan kale raac in dhaqaale haysto waxa ay sheegtay marka suurisinina dayigtay waxa dhahday arrin kale oo xamra tahay gabadhan reer Hargeysa ali dhahday barnaamijkaas mudira in hortaniya waa sax in maamada lambarkeeda maana wiil ayda naga warqaba jiro la dhashay markii wiilka lambarkiisa maamada iga soo wacday markii waxay leedahay anigu gabadheeda waxay sheegtay in ay xamar tahay ay xamarna gabadheeda uma rabo anigu reer Hargeysa lana soo galay ugu dhahay marka waxaan ku dhahay kulay in haddii saas dhacdo qof weyn aad tahay haddii gabadha banaanka iga mar leedahay in laga bilaabo saacan ugu ogaadaan ku dhaasuu Ilaahay ugu banaanka ka mar maalintan ugu dambeysay gabadha aan ahaa jaceelka waxa ku isray xamar ahaan Soomaaliya aad iyo aad boqolkiiba boqol ina la xamarta aad iyo aad reer Hargeysa Somaliland naagtay aniga Soomaaliya jeeda aad iyo aad magaca Soomaaliya gabadha ku is aad iyo aad ku waa taas aaminsanaa zaid taas aaminsanaa di waqtigaas oo laha Somaliland kaman Soomaaliya ka go gabadha jaceelka waa heli ma qaadan lahayd weeyna horta wallahi nin walba horta gurigiisa oo mudnaan ku leeyahay fahmi
in haddii maanta intaan baxo Somalilander noqon leedaho dee nin oo xoogaho in dalkiisi iyo dalkiisiba ugu dhaxbaxay xoogaho xuquuq aan wax loo geest ay noqon marka taa waxaan ka darbeelay inaan wadankayga joogo aan ku naadqo jaceylkeena aan ku waayo okay ugu dambeyntii dilow oo dadkaan daawanayo nawada soo maxaa leedahay dadkii daawanaya والله هرت كل قفول بقيسوا يسوق بسنسان وعلى قوري لكن هدي قول مقدمات اللي جايو إن قرن يبوق لوديو والله قرن كسيبوق أنا أذكر ما دام وحبا كقوري لها ما براد وأنا كقوري هذا نبغى كقوري لكن وماذا نقف ضمبو كل سنة بقول كي بقول أنا نقصينين إنسان قف كأوسين أوكي وحق شمرتي لبدي بعده جبني كارع من العقل iyo adiga uu dhahay Soomaaliya ku jira reexamara tahay gabadha inuu reerkiisu mugsiinay kuma siisan taas dhibaato soo martay labada dhibaato soo martay ay soo martay kasto waqtina iga soo gala qofka marka haddana alxamdulillah maanta uma dhib qawan ragaan ahay oo lixdii lixaad waa qaba in xirfado badan wallahi waxa bartay marka kulli meel uma fadhinaan ragaan in kasto jecelkeyga qof jecelkiisa wayn waa dareem kartaa isagoo saaxiib okay maxaa keenay naqtan la soo wadaagto oo mid soo dhaafsho والله هرت ساحبه لا بس يا بودان قصيدة أسوق قدبين فهم إن مد كروات قف والبقف وجعله إنه هرو ارتوا مهم إن له داي إن مد لبعض مد العقدة ارت العقد حي تري سمرة دنيا هذا أنا يرتجوكته وحي مقلن قف كان والو دنيستا دنيسي مرك قف كان قلبي يسجبه ما فينا دنيسي فينا إلى العقد يقيمنا لكن الدكتور أنا قف هاد بجر عديبه waxa adduunka ugu qaalisan oo qofka ku siiwa qalbiga hadii qofka bil aadanka qalbigiisa lacag ku raadinay ka warasaxo dhibaato iska dhibaatan ta marka taas macni inaan shuca aan u soo gudbiyo asxaabta okay ma santa sax ilaa هذا ما سنتنا برادر برامج كاغن وكله واسكلو هذه تيم كاغن ما يسلمنا